markana waa barnaamijka tiknoolajiyada iyo toddobaadka ee kaliya waxa la tijaabinayaa gaari duulaya si xal loogu helo saxmadda wadooyinka gobolka California. Aisha Afrax ayaa inoo haysa. أساسها شركة هواوي رانغ جانغ فاي ayaa sheegay inuu noqon doono qofka ugu horeeya ee ka soo horjeesan doono haddii uu shiino cunaqabateyn ku soo rogo shirkadda Apple isagoo ka falcelinaya cunaqabateyntii uu Mareykanku Huawei saaray. Mareykankuna wuxuu sheegay in xiriirka adag ee Huawei kala dhaxeeya dawladda Shiinaha ay ka dhigaysa shirkad amniga halis ku ah, balse Huawei ayaa ku gacan saartay eedeymahaas. dhanka kalena madaxa Facebook Mark Zuckerberg ayaa cadaadis ka dareemayay Yurub. golaha ilaaliya macluumaadka ee Ireland ayaa sheegay in baaritaanadoodu badankood ay diiradda ku saarayaan baraha bulshada bogagga sida Facebook, Instagram-ka iyo kuwa la midka ah. badankoodu shirkadahaasi waaweyn waxa ay Ireland ku samayn doontaa baaritaan. Facebook ayaana sheegtay inay la shaqayn doonto golaha baaritaanada sameynaya. gaari duulaya oo ku shaqeeya maadada hydrogen-ka ayaa loo haystaa inuu xal u noqon doono zaxmadda wadooyinka gobolka California ee Mareykanka. gaarigan duula oo loo yaqaan Sky waxaa lagu soo bandhigay shirkadda BMW stuudiyaheeda ku yaala Los Angeles. gaariga ayaa dhulka yaalay waqtigii bandhiga, balse injineerada sameynaya ayaa qorsheynaya inay duuliyaan dhawaan. ugu dambeyn, robotkii ugu horeeyay ee khudrad soo gura ayaa beer dalkan Britain ku taala laga shaqaaleysiiyay. weli si aayar ah ayuu u shaqaynayaa, balse khubarada robotyada ayaa sheegaya in dhawaan uu la qabsan doono shaqada soona guri doono 25,000 oo khudrad ah maalinkii, taasoo ah 2 jibaar inta ay bani'aadamku soo guraan.